kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogta waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa si kooban dhowr qodob oo naga soo gaaray dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sare iyo waliba dalkaasi Djibouti qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaaladii xooganaa ee maanta ka dhacay galbeedka gobolkaasi City ee ay danaakiradu sida gardarrada ugu soo qaadeen aan idhaahdee deegaanadaasi daba faafahinta ay ugu dambeysay iyo waliba warar cusub oo ka soo kordhay dagaalkii maanta ayaynu daawadayaal ku qadadhigi doonaa Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in isdiyaariyaan ciidamada badda ee dalkaasi Itoobiya kuwaasi oo dhawaan ay galbin doonaan ciidamada makalakayaga si ay u gaadhaan Luqaya Zaylac iyo deegaanadaasi aan idhaahdee waqooyiga dalka Soomaaliya oo si weyn uga carootay iyo waliba ciidamada Eritreanka iyo waliba kuwa kale masaarida oo laftigooda la keeni doona dalka Soomaaliya hadaba xaaladda dalka Soomaaliya oo mar labaad cirka isku shareertay iyo waliba warar ku saabsan aan idhaahdee dhanka diblomaasiyadda ayaad ku maqli doontaan waxa kale oo daawadayaal barnaamijkeena aan ku qadadhigi doonaa dalkaasi Djibouti qodob xasaasi ah oo ka soo kordhay ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka waxa alaba soo indheeya oo aan ka wareysanaa Dr. Shide oo asagoo inta badan ka faalooda xaaladii ugu dambeeyay dalkaasi Itoobiya dowladda deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba xaaladda geeska Afrika Dr. Shide soo dhawow waa dhawaay saaxiibi aku bilownay Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya waxa uu sheegay in isdiyaariyaan ciidamada badda ee dalkaasi Itoobiya marka arrinkan muxuu ah aad iyo aad baad mahadsan tahay Colonel Faragodow Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya munaasabad ka dhacday magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ayuu ka sheegay in halkaasi ay Itoobiya ay isu diyaarinayso in ay tagayso badda gabagabana waqtigu yahay gunaanadkiina la marayo ayna diyaariyeen gabi ahaanba ciidamadii baddaasi tagi lahaa halkaasi waxaa ku sugnaa saraakiil aad u tiro badan oo militariga dalka Itoobiya noocyadiisa kala duwan kuwa dhanka badda iyo ciidanka maartay militariga caadiga lugta oo gaashaandhiga iyo maartay ciidamo tiro badan oo noocyada kala duwan ee militariga dalka Itoobiya oo sirdoonku uu ku jiro ayaa goobta fadhiyay Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu sheegay in Itoobiya ay joogto waqtigii ay maartay ay badda tagileen marka halkaas wuxuu kula hadlay saraakiisha ciidanka noocyada kala duwan kuwa ciidanka caadiga ee lugta iyo ciidanka badda halka saraakiisha ayaa wada joogay waxa uu sheegay ciidanka badda horta inay isdiyaariyaan oo qalabkooda xidhaan boorsooyinkoodana ay soo qaataan oo isdiyaariyaan wuxuu sheegay sidoo kale inay ciidanka gaashaandhigu ay geyn doonaan ciidanka badda ay badda geyn doonaan oo ayagoo inagoo ciidankii badda inayna iska tageen halkaas laakiin ay ciidanka gaashaandhigu ay geyn doonaan oo ka wada ciidanka difaaca qaranka ayaa ina geynay oo gur iyo garba inay la garab taagan oo meesha inagu inay nagu difaacayo inaguna xirfadii badda ee soo barateen inaad uga faa'iideysaan shacabka Itoobiya ayaa la rabaa buu yiri marka waxaad moodaa Colonel Faragodow inuu isdiyaariyay hawshuna ay gabagabo marayso haddana sagootinkii ciidanka Itoobiya ee badda tagay badda la tagay badda la tagay dadku waa su'aalo badan bay ka qabaan oo Itoobiya ilaa bad ma leh badda la qabanayo ee maartay Itoobiya ay yeelatay waa badaha Soomaaliya waxay tagaysaa Zaylac iyo Luqaya ayaa loo socdaa sababtoo waxaan ogsoonay Itoobiya meelaha ay calaamadeysay meelo badan bay calaamadeysay xataa Eritrea laakiin Eritrea wanaagnahay Eritrea in dagaal looga adkaado Itoobiya baddaas uu guri kaga geli karaa laakiin holac baa ka sokeeya oo Eritrea in iska celiyo wala la dagaalamo wali dagaalkaasi uma jeedno maartay dagaalkaasi uma jeedna hadda marka meesha hadda aan difaacaysanin dhaqaaq ciidan oo ka jirin dhulka Soomaalida marka Zaylac iyo Luqaya ayaa ciidamadaas loo daabulaya qorshahoodina uu socdaa gaadiidkiina uu taagan yahay boorsooyinkina way xiran yihiin wakaas waa gartay daawadayaal baan ogaan doonaa xaaladda uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed uu ku sheegay ciidamada badda ee dalkaasi Itoobiya inay isu diyaariyaan sidii ay badda ku tagi lahaayeen iyo isagoo sheegay inay galbin doonaan ciidamada makalakayaga ee dalkaasi Itoobiya Soomaaliya waxay isu diyaarinaysaa sida la tilmaamayo inkastoo dowladda uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud ay tahay dowlad daciif ah oo meeshii loogu wareejiyay dowladii hore ay aad uga liitaan dhanka ciidamada sirdoonka iyo waliba dhanka dhaqaalaha haddana waa dowlad la dhihi karo waa hal iska taageero mooyaane macna weyn aan ummadda Soomaaliyeed u haynin dhanka kale ummadda Soomaaliyeed qalbi jabka ka soo wajahay dhanka dowladda ayaa sii kordhaya maadaama Xasan Sheekh iyo Xamza aad mudeen ku fashilan yihiin gabi ahaanba habudhiska iyo dibudhiska dalka Soomaaliya waayahay
haddana intaan ka gudubno bal qodob Jabuuti ku saabsan oo inoo soo socda ninka lagu magacaabo Shidow maxaa ugu dambeeyay gobolka galbeedka City dagaaladii ugu dambeeyay iyo waliba maanta wuu cusla dagaalku dagaalkii galbeedka City waa uu sii xoogaystay deegaano hor ayuu ku fiday anfarta ayana weerarka soo qaaday deegaanada isku balaariyeen halkaana wali waxa laga maqlay dhawaaqa hubka noocyadiisa kala duwan ee soo adeegsanayaan anfarta iyo Soomaalidu anfarta muuqaalada ay tibinayso guula ay gaadhay sheegaysaa in meesha ay Soomaalidu ay aamusan tahay cadayna laga hayna oo kali ay sheegayaan xooga furinta ku sugan inuu dagaal socdo dagaalkuna uu ka socdo deegaanadii waayadii ugu dambeysay lagu hardamay ee hoostaga degmooyinka Dhunyar iyo Daymed ay dagaaladu ay ka soconayaan anfarta taliyasaro wada wuxuu sheegay inay piki ila asbuli ila deegaanada maartay erar meel dhaha oo ay dir dhaba xigta dhammaan inay qaban doonaan ciidankooduna una hakan doonin qorshaha anfarta ay qaadatay waa uu ka weyn yahay qorshihii hore ama wixii hore lagu dagaalami jiray Faragodow wayna isbedeshay hawshu anfartuna waxaad moodaa maalinka ka dambeysay inay tallaabo hor ay u qaadayso ay dhul Soomaaliyeed ku doonayso qorshaha anfarta ay qaadatay waa uu ka weyn yahay wixii Soomaalida iyo anfarta dhaxyaalay waxaadna moodaa barnaamij laga soo diyaariyay Itoobiya kore in la hirgelinayo oo gebi ahaan galbeedka City ama gobolka City ee 11 gobol ee dawladda Soomaaliya ka tirsanaa inuu gobolkii 11aad ee gobolka City inuu baxayo oo maartay deegaankaas la qabsanayo ay moodaa dhan dagaal iyo dhan siyaasadeed oo diblomaasiyad ba anfartu qorshaha ay u qaadatay waa qorshe ka weyn Faragodow qorshihii dadka Soomaaliyeed ay moodayeen waxay moodayeen anfartu in ay doonayso kali ah magaalooyinkan Candhuufo Cadaytu iyo Garbaciise ama jidka cad ee ka yimaada Jabuuti ee laamiga tareenka wadada tareenka ee Addis Ababa aaday inay furinta ay doonayso iyaga Jabuuti aan la kala dhaxgal inay doonayso kaliya la mudan laakiin arrintu sidii way ka weynaatay waxayna rabtaa gebi ahaanba gobolkaasi in ay la wareegto hadda waa degmadii shanaad ay ku dagaalamayso saddex degmo oo hore loo qaatay oo ka samirba laga soo tagba Dhunyar iyo Daymed waa laba degmo hadii lagu daro 5 degmo noqon marka waa kuwii dambe la saxiixay kuwii dambe la saxiixay wax lagu dagaalamayo ma fahantay marka ma mid baxistaan kuwii dambe laba qabsada be ma labadiiba ma labadii cusbeed dibadaan saxiixay labadii dambaba waa lagu dagaalamayo deegaanada lagu dagaalamay xagee hoos tagaan labadana hoos tagaan deegaanka hadda lagu halgamayo ma hoos tagaan Candhuufo iyo Cadaytu Garbaciise ma hoos tagaan waa Dhunyar iyo Daymed waay labadii degmo cusbeed waay ma fahantay marka anfartu waxay rabtaa totally wada meesha la soo soo galay labadii degmo ee dhawaan la ansixiyay maadaama looga soo tagay kuwii hore looga soo tagay labadii degmo ee la ansixiyay hadaba qarka u saaran yihiin maxaa meesha yaala wax yaala male waxa loo socdo waxa waaye degmo ma waa gobolka dhan in la qaato shiniilo lagu dagaalamay aragtida bari shiniile kid duladka dirdaba oo lagu dagaalamayo ayaad arki doontaa qorshuhu waxa waaye beeshan ciiste ee gobolkaasi degta laba mid inay soo gasho barnaamijka ay anfarta u qaadatay laba inay mid soo gasho waaye ma fahantay laba mid inay soo gasho waay anfartu qolada ciise ayaa loo dejiyay anfartaana dejisay ciise loo mid soo galaa la yiri ama guura oo Soomaalida in raac Soomaali ka daba taga oo gudaha Soomaalida gala ama anaga naga tirsanada oo noqda beel ka tirsan gobolka dhulka anfarta labada mid soo noqday Ciise ya anfarta iyo sheegtay Ciise waxay istaageen anagu Soomaali baan nahay dadka Soomaaliyeed baan raacayna dhulka naga waa difaacanayna dhulka difaaciisa qorshii laakiin ciidankii ugu faraha badnaa waa isdhiibay maxaa way isdhiibayaan waxay isu dhiibayaan siyaasiga Ciise meel buu ka duleelaa meel ayuu ka duleelaa aad farax kale maxamed dirro kale ragga aad aragtay ee dhulkooda si loogu dagaalamayo ee degmooyinkooda dhan la qabsaday haduuna aad farax iska daa dagaalka uu ka hadlay dawladda Itoobiya uu kala hadlay uu ka tacsiin ka waran hatta dhibaatada gaartay dadkiisa afduubka dhacaya hantida la qaadayo xoolaha wiilasha yareer ee maalinta meesha lagu leeyahay kama oo hadlayo niyadjabka maxaa keenay odayaashii way niyadjabeen waxa ku niyadjabeen siyaasigoodii ayaa wuxuu leeyahay qoriga dhiga hadda dagaalamina dhulka dhul Itoobiya anfar leeshiiwleed meesha maamulka deegaanka Soomaalidu ay odayaashii ay qayb ka mid ah ileen dhulka nala difaaca maamulka deegaanka Soomaalidu ay ileen dhulka naga difaacano meesha Mustafa oo madax ciid ka duwanay uu leeyahay deegaan nabad ayaa lagu wareejiyay yaa la dhihin gobolka oo dhan gacantiisa ka bax ma fahantay marka hadda way hiriqlaynaysaa hiriq maqlid deegaanka Soomaaliya nafta ka sibaxaysa ina galbeedka City ka baxaan iyo qarka u saaran maalinka hore gulf ay qaadeen
degmooyinka Dhoonyar iyo Dayme dhulka hoosta oo dhaway qabsadeen waxay tageen difaacii daba mara oo candhuuf u jira wax yar buu jira oo aan ka badnayn 6 kilomitir ay tageen laakiin maanta way ka soo tageen hadana hay marka Soomaalidu waxaad moodaa qudhigeeda maamulka deegaanka Soomaalidu dagaalka uu ka hogdaa dagaal ma artay ayna warbaahinta ka hadleen deegaanka aan maxaabiista iyo qabsan iyo dhibaatada ka dhacaan la sheegin oo laga meesha cafartu telefishinkoodu warka labada saac isku xigtaba warka uu tabin halka hawsha ay marayso rag baa la soo xiriiraya waxay leeyihiin aaba guulaan gaarnay halkaasaan gaarnay xoori baan marray intaas maxaabiistaan soo diray oo qabaalka soo saaran istaalka geeya kii xanuunsan kii kale tan xabsi u sii dhaadhiciya yeelay maamulka deegaanka hadaad weydiiso kula dagaalayaan dagaal kula dagaalayaan waxa arkay kara marna iyagu geedo ku abuurayaan barwaaqo ku jiraan oo ciyaartay baa socoto wadanku waa nabad ayuu markii jigeel isku yimaadaan iswareysanayna hay wakaas hawsh waysa masalan waa gartay bal dib aan kugu soo noqon doonaa xaaladaha Itoobiya laakiin war yar ma rabaa inaan kuu sheego war yar ayaan rabaa inaan kuu sheego shidow Djibouti ayaynu yar galaynaa Djibouti waxay leedahay dhowr dekadood ilaa 7 dekadood bay leedahay waan gartay meesha ciidanka iyo dalka laga dhiso ee maamulku ku kala socdo waa canshuurta laga qaado dekadaha Djibouti hay hadaba maxaa dhacay waxa jirta maraakiibta iyo qolyahan qolo u xil saaran hay'adaha oo sida loo kala service fiican yahay adduunka idil baa qiimeyn lagu sameeyaa xagga service-ka markii la yiraahdo sidee bay service-ka wadamada maraakiibtu sanad walba u soo baxaa Djibouti waxa hore dhanka service-ka ee dekadaha waxay ka gali jirtay wadamada wadanka 26aad bay ka gali jirtay service-keedu aad buu fiicnaa qalab aad u horsareeyay ku shaqeyn jiray laakiin waagii dambe waxa la yiri musuq baa dhaxbooday kii musuqaha oo Soomaali meel laga geeyay la yahay yaa horta dhaxbooday waxa laga keenay baa la yiri wiilal waa sida marka warka lagu tabinayo ma garanaysaa wiilal laga keenay eeda u tahay iyo habaryar iyo wuxuu tahay oo Soomaaliland laga keenay ayaa dekadii la wareegay khadra xayd baa ku qortay la waa xaaska madaxweynaha dalkaas Djibouti yaa meeshii ka buuxisay hadii wiilashii maxay waxayna musuq iyo wixiina maraakiibtiina way fahmeen marka qiimeyntii hadda ugu dambeysay soo baxday waxay ka galeen 333 waa dekadaha ugu hooseeya macmalka sida u shaqeeyaan oo kale Djibouti ka gashay waxay ka gashay dekadaha 333 bay ka gashay waa meelihii ugu dambeeyay way waan gartay soo xal gartay ma mid kale nin hadda magaciisa meeshan ma xasuustay laga sheegayo waxa la yiri maraakiibtu bartay musuq tanka idib $10,000 $20,000 kolba si uu xooga helo marka waxa la yiri Djibouti inta yareeyay ku noolay dekadaha ayda balaaya dhaxbooday waan gartay musuqa iyo waxa dhaxbooday baa la ma saxana odayguna ma dhaala xaga uu ku roona waagi hore ka qaadi jiray haduu nin waxyaabaha isdaba mariye hadda waxa weeyaan islaanta geysatay oo waxa weeyaan warkeedu waa lama canaantaan bacanaha daashay way waan gartay waxa ka horeysa la berbera ka horeysa hadda ka hormartay berbera ka hormartaba berbera hadda qalabka Djibouti yaala ee wax lagu dajiyay ee wax lagu xayeyma yaalan baa laakiin berbera qaabkay ugu hormartay waxay ugu hormartay dhalinyaro shaqaysato oo maxaan ku dhahay muruqmaal ah yaa ku haysta waan gartay dekadu waa berbera hidi hoobay si oo hayaan yay markabkiisa daqiiqaday meesha xoolamalihide daqiiqaday meesha uga saari baa qolaas ka service fiican baa hadda qalab fiican ma haystaan laakiin Djibouti waxa lagu leeyahay way la degtay ma aha shaqaalihi baa hadda loo leeyahay soo gartay ma waan gartay marka Djibouti intaas ka soo kordhayo waxa la leeyahay hadaan arrinta isbedel lagu qabay awal hore Soomaalida oo qaxaya loo maarlaay Djiboutiyankii baa qaxiyagooda mushaarlay qaxaya ee qadimeeshi maxaa meesha wax ka soo baxayeen hadina waxba ka soconin oo markabkii ma garanaysaa saddex habeen meesha ku xidhnaanayo maxaa meesha yaalaba meesha waxba ma yaalaan anyway xaaladdu halkaas bay maraysaa waxaan dib ugu soo noqonaynaa dalka Soomaaliya waxa la yiri ciidamada Eritrean iyo Soomaaliya waxay leedahay waxaan keenayaa iyo masaari baan keenayaa ninkii Xasan gacan taagtay Xasan Baraf gacan taagtay Xasan Socdaal socdaalkiisa boqolaad ba hadda mar dhow soo dhawaal loo dabaaldegi doona 99 ku bixiyay
وحير بقول لك بال سقاشن قبل هذا قال ربع هاي marka kii boqolaad ba mar dhow loo dabaaldegi doona safarka uu galay labada sano hay marka bal ku socbal maxaa ugu dambeeyay horta Xasan waxaad moodaa in uu gabi ahaanba uu lumiyay kalsoonida dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo maartay tayeyntii iyo maartay ciidamada dhiirigelintooda inuu gabi ahaan meesha ka saaray moodaa Xasan meeshii laga rabay inuu ciidamada Soomaaliyeed dhiso oo maanta uu ciidamada Soomaaliyeed baa la wareegay amnigii ciidan Soomaaliyeed ee lagu kalsoon yahay ma rabna in laga dhax shaqeeyo waa in xalaal soo xiro waa in atmis baxdo tiradii ay baxdo ayaa waxaad moodaa inuu kullada iyo naftiisana ku sasabayo inay ciidamo shisheeye wali ilaaliyaan waxaan ogsoonahay Ethiopia inay diyaar garow badan wado habeen dhaar bay la taagantahay badaan u soconaa waan diyaar garownay qorshahana waa gabagabo Xasan lagama hayo waan diyaar garownay waan iska caabinaynaa ciidamadana waxay gaareen inay Ethiopia dhagax ka garaacaan meena muna gaadhin kamana hadlayo wali waxa ku socdaa markab Turkiga ayaa ilaalin ciidan masaare baa iman Eritrean baa iman wiilkii dalka tayadiisii la tababar rabina gabi ahaan Xasan mar raba inuu shin lacag ku bixiyo wuxuu rabaa uu kala daray UN-ta iyo qaramada inay wali lacag cayr ah ay ciidamo sheegay dalka Soomaaliyeed dhaca iyo khayraadkiisa booba in maalkiis la soo cusboonaysiyo rabaa marka waa in siyaasadda ku fashilmay gudaha iyo dadkii midnimada iyo dalka iyo dhismihii ciidanka ku fashilmay kuwii joogay mushaarkoodii kaarasho way ku wada qoran yihiin ciidanku noo bal markii soo qoray mushaarkiisa wuu yimaadaa laakiin lama siiyo askari tahriibay ku dhintay iyo Xasan mushaarkooda qaata Xasan baa qaata kuwii dhintay iyo kuwii tahriibay ilaahu ma yaraadaan buule kuwa joogo raba mushaarkooda inuu urursado iyo rabaa ma fahantay inay dhitaab rabaa ka dhintana mushaarkiisa Xasan ku soo dhacaya kii tahriibay kii iskaga tagay shaqadan waxa la soo kordhiyay iska daa marka nin waxa ku fikiraya kuwa shisheeye imanay daasay lacagtooda ma bixinayo marka qorshayaashaas waxay ka bedeli karaan marka masaari iyo hadduu Eritrean keeno maxay ka bedeli karaan ila meeshii Xasan iyo Xamza joogo oo dawlad xumadu ay hirqad ay magaranaysa kaliya u mareysay way ka sidaan atismaan ama Afrikaanka ma iimaan laho waxay iska qaataan oo iska qanacsiin laakiin kuwa guri la oo masaari iman doona oo dabaqya qabiya ay ka wada yihiin yaa iman doona oo dhagax iyo carada urursan doona hadii gurgaaraha Falastiin bay gurgaar lahayn waka Masar hadii wax ayaa laga haystaa buuraha laga haystaa Israa'iil baa haysata ma fahantay ayaa laga haystaa masaari Israa'iil bay u shaqeysaa masaari difaaca Soomaaliyeed ma dhimanayso ee wadan iyo carri iyo ciiday urursatay rabta iyo lacag qaataan Amazon ayaa ka daraan doona ma fahantay Eritrean-ka oo gaajiseen Eritrean-ka ugu roon inay Ethiopian ka dagaalamaan laga yaabo wasan ay ka gelinayaan laakiin hada ciidan ka garab dagaalama oo wixii wada ay beelayaan iyo dawlad Eritrean-ku meel bay ku gaban doonaan inay dhintaan u dhawad ma rabaan wadeenin dhulka ku dhimanaya male wiil Soomaaliyeed hor ordayo waxa uu farta ugu fiiqay jirin taqoodooda ma shaqeyn doonaan markii Xasan tala dawlad xumada wuxuu ku darsaday jahwareerin kale qoladan la yiraahdo tanfiidka ama maxaan ku dhahay xukuumadda hawlahan fulinaysa ayaga maxaa ku dhacay qoladan wasiirada dabka ka dansan wuxuu idilba dabka isla dansan waa niman uun inay meel tagaan oo lagu soo dhaweeyo xaflad yar loo qabto uun aad ugu qaraxsan golaha wasiirada dawladda Soomaaliya golaha wasiirada dawladda Soomaaliya waxa aabahood Xamse Xamsana jikadu ka soo dhamaanay wiil jikada Xasan ka soo dhamaado iyo gabadhii Xasan dhalay oo jikada isku dhibayiin jihaan markuu ka soo dhamaado golaha wasiirada wuxuu sheegay golaha wasiirada jikada qudhooda jikada wixii ka soo baxa Xamse ka soo gaayis weeyaan marka shaqo qaran qabtaan waxa ka horeysa inay meeshaas wax kaga maqan yahay wax ka helaan marka golaha wasiirada ma joogan dawladnimo joogtay dalka Soomaaliyeed Xasan baa ugu Xasan doona hawshan sidoo ma ahaan doonto laba sano waa Xasan labada sanana way ma artay sidoo hadda toogid ku dhamaan xubba soo baxay kadib wala tashan doona xubba soo baxay inuu wuxuu rabaa agaasimayaasha iyo xaafadda inuu igu shubo rabaa iyo codeeyo ugu shuba kadibna uu dhaho wadamada dariska maadaama uu idinka gaabiyay waxa weeyaan ay aqoonsada wax noocan soo karo iyo hambalyaay Xasan Muuse Cumar Tileeda ma soconayso Soomaali waa federal wadanku waa wadan kala socod kala fog waay qolo walba awooddeeda powerkeeda ay leedahay hadda Puntland gaar bay soo dhisaysaa dawladiyad bay samaysanaysaa xil caalami samaysanaysaa ciidamay tababaranaysaa xildhibaano ma aha intii ayagoon doorasho Puntland lagu soo dooranin dadkooda matali kara ma nin walba guriye iyo ganacsi ku leeyahay Puntland waa in deegaankiisa laga soo doorto doorashada maalinka gaadho xildhibaan kasta dib u xiladiisa dhamaado
gurigiisa ku laabanay reerkiisa xasan marka mahwiil madaxweyne noqon waan dalka Soomaaliya xildhibaanka kii garacad iyo Puntland iyo Hargeysa laakiin iyo waqooyi waa inay yimaadaan yaa dooran marka intii mukalafkana ma soconayso male Axmed Madoobana dhowrkiisa xildhibaan gacanta ku hayaaba filim baa u matalo meesha agent ah filim bishalay wuxuu ka qureecday afmadow halkaas jooga bariyahanba hadduu Axmed oo filim buu kaalay u yar way imanayaan way soo qureen filim baa u matala ma fahanteen marka Axmed maalin madaxweynaha ku dhamaad xilwaanaysi u yeedhi qorqor ugu yeedhi orday madaxweynaha yaa xilwaan wadanka xilwaan baa wax doortay ma fahanteen ma ida shacabkii uu dhigo aan shacab codaynay ma leh shacabku waa in laga doorto meel kasta oo dawlad goboleed waa in laga doorto dawlad goboleed hadii doorasho ka dhicin doorasho muqdisho ka dhacdo kaliya doorasho kuma noqonayso waxaan ku nin walba waxaan ku dhawaaqay Axmed doorasho kuma deyn doorasho qoon madaxweynayaal kale ku dhawaaqayaan wadaaga Kenya Ethiopia aqoonsan Shariifna ku dhawaaqay Shariifna ku dhawaaqay xaafadiisu kaga dhawaaqay xaafad maxamed muqdisho meeshii كارم قول بدي مياه حنودي علاج بيهن ما فهمت مركز شريف يكون واقعي نيجي عبد الرحمن شكور أسوي عبد الرحمن شكور في صدق تابع يوم يحمله كل واقع حسن على خير إنه كل واقع ما هو يكون واقع يعني جبتي حسن ها ويا ماشي كانت معي جرس بالي كل واقع ما فهمت مركز حوالي بدل ما صار حسن وتقدر حاجة يقر لا بس نحتاج إنه بس أنا لما aad buu maasay daawadayaal barnaamijkeena faaqidaada ima hayeen ugu gunaanada inta aynu dib ugu kulmi doono mid ka mid lamid ah waxaan u kaga tageynaa sida ay nabadgelyo